كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. إن شاء الله waxaa fooda inagu soo haysa bishii Ramadaan ee waxa weeye barakaysnayd. insha Allah ilaahay idimkiisa duruus kooban oo waxa weeye mulakhas ah oo insha Allah aan soo ururinay ayaan ilaahay idimkiisa rabnaa inaan bulshada la wadaagno bisha waxa weeye barakaysan ee Ramadaan. duruusta kooban walaalayaal insha Allah waxay noqon doonaan 30 qissatan bilisaan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. soddon qiso oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye uu inooga waramay ayeen waxa weeye insha Allah is xasuusin doonaa. naftayda iyo nafihiinaba waxa weeye insha Allah waan xasuusin doonaa. walaalayaal qisaska waxyaabaha inuu ku dooranay waxa kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala fi kitaabihi al-kareem waxa uu leeyahay laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi yusuf iyo waxa weeye qisaskii dhaxmaray isaga iyo awlaadiisa qayb kamida marka Allah subhanahu wa ta'ala uu ka warramay waxa ilaahay uu yiri waxa weeye waxa idin ku sugan qisaska aan idin soo bandhigay ba Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay waxa weeye ku ibra qaadasho oo waxa weeye ay waliba ugu sugantay dadka waxa weeye dheer garadka ah ee wax garadka ah ee waxa weeye aakhiro ka fikiraya. walaalayaal wama yanṭiqu 'an al-huwa in huwa illa wahyu yuha. nabiguna calayhi salaatu wassalaam wahyi ayuu waxa weeye ku hadlayay. duruustana soo gudbin doonana insha Allah wahyigaas ayay waxa weeye kamid tahay oo nabiga calayhi salaatu wassalaam ka sugnaatay. soddon ka qiso ilaahay idamkiisa waxay taaban doonaan jaanib kasta oo waxa weeye nolosha qofka ibn aadamka ah waxa weeye adduunkan maaragtay intuu joogo iyo aakhiradiisa intaba waxa weeye way ka hadli doonaan duruustani. sif insha Allah ilaahay idamkii mulakhas oo kooban insha Allah waynu u soo bandhigi doonaa ilaahay idamkii. waxyaabaha walaalayaal aan ku doortay runtii Ramadaanada waxa weeye si faahfaahsan baa looga hadlaa ahkaamteeda iyo waxa weeye maaragtay khayraadka ku jira iyo fadaa'isheeda iyo waxyaabaha ay ku ansaxayso dhammaan culimadu aad bay uga hadlaan. laakiin maanta Ramadaankan waxa weeye Ramadaanadii ka horeeyayna insha Allah waynu ka hadalnay duruusta Ramadaaniga ah oo waxa weeye Ramadaanka iyo fadaa'ishiisa iyo ahkaamtiisa waynu ka hadalnay. marka insha Allah Ramadaankan waxaan doortay duruusta waxa weeye qisaska ah oo insha Allah nolosheena aan rajeynayno inay wax badan ka bedeli doonto. waxyaabaha ay ugu kalifay waxa kamid ah qisaskan runtii qodobka koobaad aan ku doortay waa nabiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisa ay waxa weeye ku sugnaadeen. arinta labaad walaalayaal aan ku dooranay annaha tahmilu al-ibara wal-hikma wad-durus waxa weeye waxay xambaarsan yihiin waxa weeye ku ibra qaadasho iyo waxa weeye xikmado iyo waxa weeye duruus waxa weeye qofka muslimkii uu kala baxayo oo ka qaadanayo. arinta walaalayaal saddexaad ee uu dooranay usluub ardiha jamiil waxa weeye runtii waa qisas soo jiidasho leh oo runtii aad waxa weeye loogu farxi doono ilaahay idamkii. arinta walaalayaal afraad ee waxa weeye aan maaragtay u dooranay istinbaadaat al-ahkam ash-shar'iyya wal-aadab al-islamiyya waxa weeye inaan kala baxno qisaska waxa weeye ahkaamta sharciga ah iyo waxa weeye maaragtay aadaabta waxa weeye islaamiga iyo tarbiyada waxa weeye qofka muslimka naftiisa uu ku tarbiyadeynayo inaynu waxa weeye insha Allah iyadana kala baxno. waxyaabaha walaalayaal afraad ee aan ku doortay waxa kamid ah runtii midho dhal fiican bay yeelan doonaan iyo waxa weeye faa'iidooyin runtii aad waxa weeye oo fara badan. insha Allah duruusta walaalayaal waxaan codsanaynaa ilaahay idamkii qof kasta oo waxa weeye muslima bishii khayrka lahayd baynu galeynaa inuu khayrka ka qayb qaato oo duruusta yaryar ee kooban waxa weeye isaguna ajarka cidii soo gudbisay in leeg bisna leeyahay inaan la yaraysan waxa weeye markaad dhageysato aad ku amal fasho qofka kale walaalka ay muslimka aan insha Allah u gudbiso ilaahay dartii inaad u faafiso ayaan insha Allah ka codsanayna.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.